واي حقا قضاله نكا هدي استاجي جاكدا غريغا وتا ها adigoo ku bilaabay magacaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته codkaaga uu yeeray mikrofoon kor u qaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waxa weeye دكتور عبد الجبار دكتور عبد الجبار waxaan ahay wiil reer Soomaaliland gaar ahaan ka yimid magaalada Boorama madaxweyne waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo heshiiska aad gaadheen adiga iyo maamul goboleedyadu deegaamadan ka soo jeednay Soomaaliland ma laga tala geliyay su'aasha labaad ee rabay inaan ku weydiiyo madaxweyne waxa weeye Soomaaliland xaalkeega waad ogtahay bari ka maalin haddii Soomaaliland ay soo laaban lahaydba yacni dadka maanta kuraasta ku fadhiya ee adigu ugu horeyso ma tanaasul ma sameynaysaa kuraasta waddanka ugu sarreeya inaad siisaan oo xaal uga dhigtaan waxa weeye ma taqaanaa taa diyaar ma u tihiin mid saddexaad baan jeclaan lahaa haddaad igu darayso mudane madaxweyne doorasho dadban waxa weeye dee waad isku ogtahay caqabadaha ay leedahay annagana waxaan hor jooga haddaan reer Soomaaliland nahay dad waxa weeye shirkii ay bagaati ilaa hadda maanta fadhiya sida u eegtayna waxa weeye rag dee waxa weeye intay kuraasta fadhiyeen xoogaa jeebkana buuxsaday ta soo socotana rajadeeda waan aragnaayo niban ku ka shilin badan yahay ayaa noo muuqata inuu soo baxayo dadka jeebadaha igu maray haddana han kale maxaad madaxweyne u sheegi lahaa intaas ku soo dhaweeyay aad ma santahay saddexdan su'aal aan ka jawaabayna insha Allah madaxweynaha siinaya waxaan walaal warsamo ugu horeeya بسم الله الرحمن الرحيم ورسمه وحيري قوندada dumarka hadda jira ha loo badiyo saan u fahmay boqolkiiba 30 weeye wuxuu leeyahay boqolkiiba 50 ha laga dhigo laakiin tartan ha la geliyo boqol iyo 30 ma hadda waa boqolkiiba 24 boqol iyo 24 taas kuma imaan bariyo waxay ku yimaadeen doorasho ku yimaadeen haddii ilaahay u badiyana insha Allah waxaan rajaynaynaa inay taas ka bataan hadduu ilaahay yiraahdo laakiin waxa weeye boqolkiiba 30 waa target weeye marka hadda targetkaas ma gaarin laakiin waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo dumarka qoondadooda inay gaarto boqolkiiba 30 iyo in ka badan tartankuna waa furan yahay tartan dumar loo xiray ma jiro tartanku waa furan yahay way ficnaan lahayd xaqiiqatan in la og yahay xaqiiqatan inta dumar soo noqonays way ficnaan lahayd laakiin haddii la yidhi waa tartan anu kolleyba waa jeclaan lahaa inaan caawiyo gabdhaha hadduu ilaahay yidhaahdo maxamed shire wuxuu yidhi dalka mala gaaraya hal meel in laga xukumo dalkan muddo ayuu wuxuu ku jiray runtii xaalado adag aad iyo aad u dhib badan ayuu ku jiray dhibaatooyin badan ayuu ka soo kabanayay dadkii waa kala tageen waa la kala irdhoobay hadda yaa bilaabanaysaa in aan ku heshiinay federalismka marka inaan xoojino federalismka qaababkii la isugu imaan lahaa oo awoodahan loo qaybsan lahaa khayraadkan loo qaybsan lahaa hadduu ilaah yiraahdo waana qayb ka mid ah dhamaystirka dastuurka hadduu ilaah yiraahdo waa gaaraynaa waqti isqabqabsi uusan jirin waxaani federalismka waa wax nagu cusub qof walba sidee la tahay yuu u fasirtay iyo maalintaas u joogo laakiin waxaa la heli doonaa hadduu ilaah yiraahdo fasiraad wanaagsan oo ka muuqda dastuurka iyo haddii fasiraadaas ay gasho shaki ay gasho meel ka sarreysa oo la aado oo ah maxkamadda dastuuriga oo kala saarta dadka hadduu ilaah yiraahdo laakiin meesha aan hadda taagannahay way ficnaan lahayd inaan kasii fiicannahay oo meel kasii fiican aan joogno haddana naftigeeda dalku waa socdaa horuu socdaa maalin walba meel yaan joognaa meel baan taagannahay waana horena waa socon doonaa hadduu ilaah yiraahdo
arrinta cabdijaabir uu yidhi maxamed shire waa sheegay cabdijaabir arrinta ah wada hadalka soomaaliya somalilan yuu ku soo celiyey iyo doorkay ku lahaan karto doorashadan su-aashaasi kolleyba dee uma baahna fasiraad uma baahna su-aashaas jawaab uma baahna laakiin waxaan kaaga jawaabayaa tan gaarka ah oo aad tiri wada hadalka iyo wada jirka iyo midnimada soomaaliyeed kursigaaga ma ku bedelan lahayd haa waa ku bedelan lahaa xaqiiqatanna horaan usoo jeediyeyba wax cusub ma aha hore yaan usoo jeediyey haddana diyaar yaan la ah hadduu ilaah yidhaahdo waa mahadsanta waa yahay gabdhaha wax ka siinayaa maryan